bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaashana qiimaha badan meel kastoo aad joogtaan si kastaba aad noola socotaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta ee maanta. barnaamijkeena falanqaynta maanta intaan ku guda jirno waxaad ku maqli doontaa ama aad ku daawan doontaan ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay duqeeyeen xafiiska madaxweynaha Iiraan iyo xarunta golaha sare ee amniga qaranka. hay-adda qaramada midoobay ee kormeerka nukliyeerka oo ayadana sheegtay in waxyeelo soo gaartay xarunta Nantaza. sidoo kale hoggaanka Lubnaan oo si adag ugu soo horjeestay Xisbullah iyadoo duqeymo cirka ay ka dhacayaan Beirut kumanaan kun oo qofna ay ka barakacayaan. intaas iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkan intaan ku guda jirno, balse waxaan ka codsanayaa muuqaalka like inaad noo saarto si dad badan u gaaro. haddii aad noogu cusub tahayna channelka like noo saar, mahadsanid. ciidamada Israa'iil oo sheegay in ay duqeeyeen xafiiska madaxweynaha Iiraan iyo xarunta golaha sare ee amniga qaranka. haddaba waxay sheegeen in weeraradu dhaceen habeenkii xalay xilli mugdi ah oo howlgal cirka ah ay si joogto ah u socdeen. ciidamada Israa'iil waxay intaasi ku dareen in sidoo kale la beegsaday goobo ay ku kulmaan madaxda ugu sareysa nidaamka Iiraan, kuwaas oo mas'uulka ah go'aanada amniga ee dalka ayaa la yiri. waxaa sidoo kale la weeraray xarun lagu tababaro saraakiisha militariga Iiraan iyo kaabayaal kale oo muhiim u ah dowladnimada dalka. dhanka Iiraan weli si rasmi ah uma aysan hadlin weeraradan, mana aysan xaqiijinin ama beeninin warka ka soo baxay Israa'iil. hay-adda qaramada midoobay ee kormeerka nukliyeerka oo sheegtay in waxyeelo ay soo gaartay xarunta Nantaza. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka tamarta nukliyeerka ayaa sheegtay in xarunta kobcinta shidaalka nukliyeerka ee Nantaza ee dalka Iiraan ay soo gaartay waxyeelo dhowaan dhacday. intii lagu guda jiray duqeymo ay wadeen ama ay wada qaadeen Mareykanka iyo Israa'iil, hay-adda waxay caddaysay in inkastoo waxyeelo ay jirto, haddana aan la filaynin wax saameyn shuca ah ama radiation loo yaqaano oo khatar ku noqota deegaanka ama dadka ayaa la yiri. sida hay-adda caalamiga ee tamarta atomic IAEA sheegtay, waxyeeladu waxay inta badan ku dhacday dhismayaasha laga galo qaybta dhulka hoostiisa ee ku taalla xaruntaasi. xarunta Nantaza horey ayaa loo weeraray dagaalkii 12 maalmood ee socday ee u dhaxeeya Iiraan iyo Israa'iil bishii Juun, markaas oo Mareykanku ku lug yeeshay ama ku lug lahaa weerarada. IAEA waxay intaasi ku dartay in aysan arkin wax saameyn dheeraad ah oo ku yimid warshadda kobcinta shidaalka nukliyeerka ee ku duugan dhulka hoostiisa. haddaba waxaa la rumaysan yahay in walxo nukliyeer ah oo ay weli ku hoos duugan yihiin xarunta, iyadoo la socdaan qalabyo oo qaarkood burbureen ama waxyeelo soo gaartay. si kastaba ha ahaatee, hay-addu waxay sheegtay in tan iyo dagaalkaas Iiraan aysan u oggolaanin in ay booqdaan goobaha la weeraray si ay u sameeyaan kormeer rasmi ah. hoggaanka Lubnaan oo si adag ugu soo horjeestay Xisbullah iyadoo duqeymo cirka ahi ay dhacayaan ama ay ka dhacayaan Beirut kumanaan kunna ay barakacayaan. ciidamada Israa'iil ayaa maanta duqeeyay dhisme ku yaala stuudiyaha telefishinka Al-Manar oo xiriir la leh Xisbullah, kaas oo ku yaala koonfurta Beirut, kadib digniin horey loo amray in laga guuro goobta. telefishinka Al-Manar ayaa xaqiijiyay weerarkaasi. war ay soo saareen ciidamada Israa'iil waxay ku sheegeen in ay beegsadeen xarumaha taliska ee Xisbullah iyo bakhaaro hub oo ku yaala Beirut. kadib duqeynta, qiiq madow ayaa cirka isku sii shareeray, waxaana la arkayay daruuro qiiq oo dul sabeynaya magaalada. waqtigaas lama shaacinin khasaaraha dhimasho ama dhaawac. xarunta iyo qalabka gudbinta ee Al-Manar ayaa markii ugu dambeysay la duqeeyay intii lagu guda jiray dagaalkii 2006 ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. duqeymahan dib u bilowday Axaddii ayaa ku qasbay dadka rayidka ee reer Lubnaan in ay ka barakacaan koonfurta dalka iyo xaafadaha koonfureed ee Beirut, iyagoo u qaxaya bartamaha caasimadda si ay ugu nabadgalaan colaadda sii xoogaysanaysa ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Xisbullah oo xiriir la leh Iiraan. ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay rabshadihii ugu dambeeyay. wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 52 qof ay ku dhinteen, 154 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymo habeenimo ka dhacay xaafadaha Beirut ee koonfurta dalka. wasaaradda waxbarashada ayaa ku dhawaaqday in iskuulada la xiri doono maanta sababo la xiriira xaalad amni. maalintii Isniinta, ciidamada Israa'iil waxay fuliyeen 10 duqeymo oo ka dhacay koonfurta Beirut iyo gobolada koonfureed iyo bariga Lubnaan. qorax dhaca kadib waxaa weerarka cirka ah oo ka dhacay mid ka mid ah xaafadaha Beirut ayaa sababay
burbur ballaaran iyadoo Israa'iil ay sheegtay in ay beegsatay sarkaal sare oo ka tirsan Xisbullah. Ciidamada Israa'iil waxay hore u sheegeen in ay duqeeyeen in ka badan 70 bakhaar oo hub ah, goobaha laga rido gantaalada iyo qalabyo kale oo Xisbullah ay leedahay. waxaa sidoo kale ay sheegeen in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka oo Xisbullah ka tirsanaa oo lagu magacaabo Hussein Mokhalid. kooxda jihaadka islaamiga ee Falastiin ayaa iyaduna sheegtay in taliyihii garabkeeda militari ee Lubnaan lagu dilay duqeyn ka dhacday koonfurta Beirut ee habeenkii. ciidamada Israa'iil waxay intaa ku dareen in ay Xisbullah Isniintii fiidkii ay soo dirtay diyaarad aan duuliye lahayn drone oo ku wajahneed waqooyiga Israa'iil balse la qabtay oo la burburiyay. Isniintii hore dowladda Lubnaan ayaa si kulul u cambaaraysay go'aanka Xisbullah ay ku gashay dagaalka Iiraan kula jirto Israa'iil iyo Mareykanka, iyadoo ku tilmaantay falalka kooxdaasi kuwa sharci darro ah isla markaana ku baaqday in ay hubka ku wareejiso dowladda. waxaa jira dhinac doonaya in dalku uu ku jiido arrimo aynan wax lug ah ku lahayn, ayuu wasiirka warfaafinta Lubnaan ka soo xigtay madaxweynaha Joseph Aoun oo intii lagu guda jiray kulan degdeg ah oo golaha wasiiradu ay ka yeesheen xiisadaha. madaxweynaha ayaa si toos ah ula jeeday Xisbullah. dhankeeda Xisbullah waxay sheegtay in iska caabintu ay tahay xuquuq sharci ah, iyadoo weerarada ku tilmaantay falcelinta ka dhanka ah gardarrada, kuna adkaysatay in marar badan ka digtay in weerarada Israa'iil aysan sii socon karin jawaab la'aan. tan iyo xabad joojintii dabayaaqadii 2024 la gaaray, Israa'iil waxay waday weeraro ku dhawaad maalinle ah gaar ahaan koonfurta Lubnaan, iyadoo sheegtay in ay doonayaan in ay ka hortagto dib u dhiska awoodda Xisbullah. Isniintii xaaladdu waxay gashay marxalad cusub, taas oo noqotay markii ugu horeysay muddo sanad ka badan in Xisbullah ay si rasmi ah u sheegto in ay gantaalo ka riday ama ku riday Israa'iil, iyadoo ku andacoonaysa in ay ugu argudayso dilka hogaamiyaha sare ee Iiraan Cali Khamenei. Ra'iisul Wasaaraha Lubnaan Nawaaf Salaam ayaa sheegay in arrimaha dagaal iyo nabadba ay tahay in go'aankoodu ay yeelato oo kaliya dowladda. waxa uu intaasi ku daray in wixii hadda ka dambeeyo la mamnuucay howlgallada militari ee Xisbullah, isagoo faray hay'adaha amniga inay ka hortagaan gantaalo ama diyaarado drone ama laga soo rido Lubnaan, isla markaana la soo qabto cid kasta oo ka dambeysa. tan waa mowqifkii ugu adkaa ee dowladda Lubnaan si rasmi ah uga qaadato Xisbullah, oo aan ahayn oo kaliya garab hubaysan balse leh xisbi siyaasadeed oo baarlamaanka ku leh kuraas. Ra'iisul Wasaaraha wuxuu sidoo kale ugu baaqay beesha caalamka inay ka shaqeeyaan helidda ballan cad oo kama dambeys ah oo Israa'iil ay ku joojiso weerarada ka dhanka ah ee Lubnaan. digniino iyo cabsida oo sii kordhaysa. ciidamada Israa'iil ayaa habeenkii soo saaray digniino ku socota dadka ku nool ku dhawaad 50 deegaan oo ku yaala koonfurta iyo bariga Lubnaan, iyadoo ku amray inay ka guuraan goobahaas. afhayeenka militariga Israa'iil General Avi Davrin ayaa sheegay in Israa'iil ikhtiyaar walba oo miiska saaran yahay oo ay ku jirto suurtagalnimada duulaan dhulka ah lagu qaado Lubnaan, wuxuuna ku hanjabay in Xisbullah ay bixin doonto qiimo aad u culus. wuxuu kaloo sheegay in Israa'iil ay ugu yeertay in ka badan 100,000 oo askari oo keyd ah tan iyo markii dagaalka Iiraan bilowday Sabtidii. dhanka kale dad rayid ah ayaa wajahaya xaalad aad u adag. Cali Xamdaan oo ku safraya wadada u dhaxeeya tuuladiisa Dayr al-Zahrani ee koonfurta Lubnaan iyo magaalada dekada leh ee Sayidun ayaa sheegay in safar nus saac qaadan lahaa uu isu bedelay 7 saacadood oo ciriiri ah. ma ogi inta ay nagu qaadan doonto inaan gaarno Beirut, ayuu yiri. waxaan u soconaa Beirut balse ma aqaano meel aan ka degi doono, meel aan hooy ka helno ma hayno.